xukuumadda laga sugaya dalka muddo ayaa dawladdu waqtigeedu dhamaaday iyo isjijiid uu ku jiray xukuumad sidee ah rabtaa inaad soo dhisto xukuumaddaydu waxay noqon doontaa haddii la yiraahdo xukuumad tayo leh waxaan kusoo xulan doonaa haddii la yiraahdo hufnaanta kartida iyo aqoonta aan dadka Soomaaliyeed aan ku ogahay in badan oo kamid ah ayaan kusoo xulan doonaa waxaan rajaynayaa inay noqoto xukuumad awood u yeelata in ay fuliso ajendaha waaweyn horyaal dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo marka awoodda qolo cusub timaadaba saaxiibay leeyihiin xisbiyay leeyihiin ururay ka yimaadeen ma dawlad furan oo dadku iska wada dhex arkaa leedinka sugaaya mise dawlad xisbigiina ama kooxdiinii ay ku xoogan tahay leedinka sugaaya adii madaxweynaha dawladda haddii la yiraahdo ama xukuumadda aan soo dhisaayo waxaa asal u ah dastuurka federaalka ee Soomaaliya midda labaad anigu waxaan rumaysnahay xisbiyo sharciyeysan oo axzaab ah runtii oo waddanka weli kama hirgelin ururo siyaasadeed ayaa jira marka haddii aad ka wado ururka siyaasiga ahaa uu madaxweynuhu guddoomiyaha ka ahaa miyaad ku ekaanaysaan maya dadka Soomaaliyeed kale insha Allah iyo ururkan xaraan kama aha laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in ay in badan kamid laga dhaxarko haddii la yiraahdo qoondada gabdhaha waxaa la yiraahdaa dawladihii dalka isaga dambeeyay waxa ugu badan ay ka helaan waa wasiir ama laba maxaa taa ka bedelaysaa aniga waxaan rumaysnahay gabdhaha iyo wiilashuba waa muwaadiniin Soomaaliyeed waxaana halbeegaygu yahay kartidooda iyo hufnaantooda iyo khibradda ay u leeyihiin shaqada laga rabo laakiin waxaan ku cadaynayaa inay aan ku dadaali doono insha Allah inay gabdho iyo wiilba ka koobnaadaan gabdhuhuna kaalin weyn bay ku leeyihiin dalkan meel kastoo haddii ay noqoto dhinaca waxbarashada dhinaca gargaarka dhinaca siyaasadda marka ilaahay idankiis gabdhuhu kaalin muuqata ayay ku yeelan doonaan xukuumaddan soo dhisi doon dalka abaaraha ka jira mudane ra-iisul wasaare xilli aad u adag ayay xukuumaddaada kusoo beegmi doontaa ansixintaadana ay kusoo beegantay arrimaha abaaraha maxaa idin qorshaysan inaad ka qabataan xaalad sidee ahaysa hadda abaaruhu ku sugan yihiin Falastiin abaaraha aad bay runtii muddooyin roobab la sugaayay oo isxiga ayaan runtii roobabkii la helin dadku dunyadii way dhaaftay oo jilaalkii hadda laga soo tegay ayaa runtii ayay aad u baaba'een roobabkii la sugaayayna inta badan dalka lagama helin sidaa darteed runtii abaarihii way sii laxaadsadeen way sii labalaabmeen dadka Soomaaliyeed waxaa intaa ugu darmaday runtii amni darro iyo isu socod la'aan ka jirta guud ahaan gaar ahaan koonfurta dalka laga soo bilaabo gaalkacyo koonfurteeda taasi marka saameyn weyn saameyntii bay sii badisay ay dadka kulahayd abaaruhu ay ku yeesheen markas aad iyo aad cabsi weyn baa laga qabaa weliba inay isu bedesho xilli dhow dhimasho oo ay macaluul isu bedesho ayaa cabsi weyn laga qabaa intaa waxaa dheer dee dadka odorose cimilada maxaan ku dhahaa runtii dareen weyn bay qabaan oo ah in xilliyada soo socda ay sii adkaan karto marka cabsi weyn baan ka qabnaa arrimahaas oo saameyn weyn bay leedahay waxyaabaha dee aan ugu talagalnay sidii madaxweynuhu runtii in badan ku celceliyey si furanna dadka uu hadda ka horba ugala hadlay booqashooyinka uu gobolada qaar kusoo kala bixiyeyna runtii ay uga muuqatay runtii xukuumaddaani priority bay u tahay in arrinta abaaraha wax laga qabto haddii la yiraahdo dadka Soomaaliyeedna waa ugu baaqaynaa in ay saa u fahmaan maxaan ku dhahaa waxaa lagu mashquulay doorashooyinkii iyo siyaasadda marka sanadkii ugu dambeeyey
marka waxa weye waxaad moodaa dadka soomaaliyeed si aad bu u ogeyn heerka ay gaadhsiisan tahay abaartu marka dadka soomaaliyeed mar kale waa ugu baaqayaa ina arrintaas laga wada qayb qaato sidii horeyba looga qayb qaadan jiray gurmadka dadkeena dowladduna ilaahay idankiis caalamkana way la hadlaysaa dadka soomaaliyeedna way organize garaynaysaa waana ku dadaalaynaa inaan dadkeena haddii ilaha yidhaahdo aan kaalmayno oo aan ka fududayno culayska jira waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal madaxweynahana aan hore u weydiiyey dhinaceeda kale inaan adiga ku weydiiyo madaxweyne xasan sheekh dowladiisii hore 3 ra-iisul wasaare ayuu bedelay adiga haddaad ra-iisul wasaare cusub tahay isna mar labaad haddaa lasoo doortay sideed idiin qorshaysan inaad u wada shaqaysaan aqoon iyo saaxiibtinimo horena waxaa la sheegay inay idinka dhexaysay ma ka fakartay caqabadaha ay dhici karto ama dhismaha xukuumadda ama shaqada xukuumadda in adiga iyo madaxweynaha ay idin soo dhexgeli karto kalsooni intee leegaad isku qabtaan bashar baan nahay maxaan ku dhahaa waa iskhilaafi karnaa aragtiyo kala duwan baan yeelan karnaa madaxweynaha laakiin waxaan rumaysnahay inaan heli karno mechanism aan ku xalino wax kasta oo dhexdeeda soo gala waxaanan aaminsanahay ilaahay idankiis inaan aniga madaxweynaha si dhow oo wanaagsan aan wada shaqayn doono